أولا السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. dhammaan bahda waxbarashada ee gobolka Banaadir iyo inta nawaaxigeeda ku nool waxaan idin leeyahay ka bogasho wacan insha Allah waxaan isla socon doonaa maadada xisaab iyo buugga form 4 insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan buuggaas si habsami leh aan halkan idinkugu soo gudbiyo insha Allah idinkana aad wax badan ka faa'iidin anigana sidoo kale aad dhiirigelisin si aan fiidiyowga u soo badsho socod wanaagsan. Example 1.1 waxaan qaadanaynaa qaybtiisa cos 15 degree. Haddaba 15 degree xagee ka timid baan leenahay waxaad leedahay laba angal oo haddii la kala jiro noqonaysa 15 degree. Haddaba angalka 45aad iyo midda 30 haddaa kala jirto wuxuu kula mid yahay 30 degree. waxaa samaynaysaa qaacidooyinkii cos a minus b iyo cos a plus b ayaad fiirinaysaa. hadda 45 laga jaray 30 waxay kula mid tahay cos a minus b. haddaba qaacidada cos a minus b waxay la mid tahay baa leedahay cos a cos b minus sin a sin b. inta waxay noqonaysaa plus maadaama ay halkan noqotay minus inta waxay noqonaysaa plus. haddaba si aad tiradan ugu dabaxdo waxaad samaynaysaa 45 waxay ku noqon doontaa a kana waxay ku noqon doontaa b. marka angal kastoo a ah waxaad ku dabaqi doontaa 45 degree mid kastoo b ahna waxaad ku dabaqi doontaa 30. marka waxaad leedahay cos 45 degree ku dhacsan cos 30 degree lagu daray sin 45 degree sin 30 degree. kadib waxaad samaynaysaa cos mid kasta waxaad fiirinaysaa qiimo u dhigmo. cos 45 maxay u dhigantaa scientifica qaado cos 45 geli waxay u dhigantaa radical 2/2 oo ku dhacsan cos 30 maxay u dhigantaa cos 30 scientifica qaado geli waxay u dhigantaa iyadana radical 3/2. waxaad leedahay calaamadda pluska soo qaado sin 45 maxay u dhigantaa iyadana radical 2/2 sin 30 maxay u dhigantaa radical 2 waxay u dhigantaa 1/2 keliya ayay u dhigantaa. waxaa samaynaysaa isku dhufo. haddii aad isku dhufato radical 2 iyo radical 3 maxaa dhacay labada radical waxaa isku dhacayo lambarada gudaha ku jiro hal radicalna waad ka soo qaadanaysaa 2 3 ku dhufo waa 6 2 ku dhufona waa 4 lagu dira baad leedahay 1 haddii aad ku dhufato radical 2 hal waa waxma doorshe waxma bedelayo waxaad leedahay radical 2 kadib waxaad leedahay 2 way ku dhacaysaa waxay noqonaysaa 4. markaad inta maraysa waxaa samaynaysaa LCM ay u raadinaysaa. LCM koodu haddii labadan tirisam yihiin hal lambar ka soo qaado kadib 4 loo qeybsho waa hal lagu dhufto radical 6 na waa radical 6 keliyaha calaamadda pluska soo qaado 4 waxaad u qaybisaa 4 waa hal radical 2 ku dhufana waa radical 2 giisa. insha Allah barnaamijkan haddii uu yahay mid idin anfacayo waan soo kordhin doonaa insha Allah. hadda barnaamijku ay bilbilow subxaana ilaahay ha nagu guuleeyo. waxaan doonayaa muddo kooban intaan la gaarin examinationka dowladda oo dhowr bilood ka dhiman yihiin inaan maadadan maas iyo sidoo kale maadada chemistry-gaba soo geliyo. maadadii kale waan ku sii diri karna insha Allah waan soo fiirfiirin doonaa. dhammaan arday kastoo wax baranaya guul iyo gobonimo.